isku mid aan nahay suuqana wada joognaa wixii kala helay ilaahay kala siinaya munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin xilal ka haya dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwa xilal hore u soo qabtay xisbiyada siyaasadda iyo dad kale oo shacab ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho xisbiga wadajir oo kamid ah asxaabta siyaasadda dalka oo lahaa abaabulka munaasabadan ayaa waxa lagu xusayay 1 Luulyo maalinta gobolada koonfur ay ka xoroobeen gumaysiga iyo midowgii gobolada waqooyi iyo koonfur marka laga tago ka hadalka maalinta 1 Luulyo ayaa mas'uuliyiinta munaasabada ka hadlay waxa ay intooda badan dhaliil iyo gaabis ku tilmaameen siyaasadda dalka ee dawladda madaxweyne Farmaajo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo kamid ah xildhibaanada aqalka sare ee dalka oo ku dheeraaday ka hadalka dhaliisha dawladda ayaa sheegay in madaxda dalka ay ku mashquuleen dayactir guriyo bedelkii nabadda dalka wax laga qaban lahaa taas oo micno aan ugu fadhin ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu tuhmayaa maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya inuu ka baaqsanayo wax la yiraahdo doorashada xilliga ka kacdo maya waa la ila oo dhalado lagu cuno ama Soomaaliya waxay kaloo tiraahdaa xagala geel wax gunti lagu qariyo ka weyn wax kaliya Soomaaliya isku waa iyo maxaa yeelay wadanka waa la qurxin karaa guryaha waa la rajeen karaa airport meesha maxaa la yidhahdaa استاذ المكشوف قلت الفرحي وارزورجي وحاب بلا لو تتاغا تياتا كيما نرجي غوريا هو يمكن بلا ولا نرجي ورجي كراس تبراها قول ولا نرجي كرا لكن قول الا رجي ماهن وان نبدا نرجي نبدا نرجي وا ونبدا نرجي وا ما نقول نرجي ما انت مدحنا وصوفي دروب تبدع تصوفي أيوة بنقول اللي ده هيبقى هو يوصل حتى لو ما سمعت حال الرجال مركب حال الرجال نبض إلا الرجال واحد نبض الرجال وبهن نبض قدر وبهن نبض وبهن إن الأسبوع الماضي حسن إسماعيل حبين كميدا برلمانka Soomaaliya oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya siyaasadda iminka dalka ay ku dhaqayso ay ka soo miinguurisay dawladda Itoobiya taasoo hoos u dhigaysa sumcadda iyo qabka ummadda Soomaaliyeed isagoo inta raaciyay in madaxda dalka hogaanka doorashada iyo guddoonka baarlamaanka ay isku dayayaan in muddo kordhin ay isku raaceen kana soo horjeeda sharciga dalka u yaala casharada waxay ka qaadataa adisaw maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku imaaday isbedel abiyeey wuxuu ku yimid isbedel naskar bitamara أبي وقت واحد ماضي وحرادي مدكرسي لو ليس عقل والفريسي عقل خسارات ديدي وليس عقل وضلالي عقل خسارة قدوميسي مش عجله يا لو قصبي أنا عقل خسارات ديدا تشيط وقت أخبر يا عيسي إنام يا عيسي لو العقل خاصة شيء سمي تقول يدي سا أي أبي على ديا وحتى دقال وفصل على قوله أو رمي سعطاني حالها جرا مدحوينه farmaajo wuxuu cadaaliyaa dawladdiisa ciidankiisu waa sida shacabkiisa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ciidankiisa militarigu waa sida shacabkiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir oo hadal dheer munaasabada ka jeediyay ayaa tilmaamay in maqaamka Muqdisho iyo matalaada uu ku yeelanayo aqalka sare dawladda ay ku doonayso in campaign doorasho ay ku gasho taasna ay tahay mid aan u cuntamin shacabka reer Muqdisho ee dawladda Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale ka hadlay muddo xileedka dhamaadka ku dhow ee madaxda dalka ay awood u isticmaalayaan cid walba oo ka aragtid wanaata taas oo shuruucda dalka iyo kuwa caalamkaba aan qabin hadalkiisa ayuu inta raaciyay sabar badan kadib haddii muddo xileedka uu dhamaado ay isku kaashanayaan sidii meesha looga saari lahaa taas oo muuqata mid ifinaysa go'aanka adag ee saamilayda siyaasadda dalka ay qaateen haddii darbiga la isku geeyo waxaa la yidhahdaa waddan kasta oo civil war ka dhacay waxa keena waxaa waaye option kala lawaa darbiga la isku geeyo haddii darbiga la isku geeyo shacabku hadda bana dhagaysta annaga mas-uuliyadda iska badiya mas-uuliyadda waxaa iska qofkii dadka darbiga ku geeyo annaga intaan u qaadan karno oo hadlayno oo nidaamka dimuqraadiga dastuurka u hoggaansanayno waa inta maandaydka dawladda ay haysato hadduu maandaydkooda dhammaado oo annaga ayaga aan isku mid noqono oo saaxada soo wada istaagno
اللي ما نضج السنة ترى هو يمغلى هدي ما ليك كل النار اللي كي لمدين حسالة مرة مدعونا حسالة مرة حكومة حسالة مرة بين الجودة مركز سكول إذا أنا سوق أنا ولا جونا وإحنا كلا هلا إحنا كلا سينا